السلام عليكم. كسولو برنامج كيني لما يبحي نول عافمات قبطا كهرتجا وحكاو ناكسين يهي داوينتا ما أنت لو حنكاد لدونا سيجود وامحي عافمات وامحي عذر سيداي عذر لو هرتي كرا عافمات كينا وامحي عافمات caafimaadka sida wada ognahay hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO waxay ku qeexdaa caafimaadka xaalad uu qofka jismi ahaan maskax ahaan iyo la dhaqan bulsho ahaan uu wanaagsan yahay taasoo macnaheedu uusan ahayn qofka inuu ka maran yahay dhammaan xanuun oo idin waxaan ula jeednaa qofka uu lahaan karaa heerka yar madax xanuun yar uu lahaan karaa qandho yar uu lahaan karaa laakiin caafimaad markii la yiraahdo waxaa laga wadaa qofka inuu jismi ahaan qaab dhismeed ahaan jirkiisa maskaxdiisa iyo la dhaqanka bulshada qaabka uu la dhaqmaayo inay wanaagsan tahay taas ayaa waxaa loo yaqaanaa caafimaad cudurna waxaa noqonayo qofka intaas aan sheegnay midkood markii laga waayo si fikirka caafimaadka aan u soo aruurino oo aan si fudud kuugu sheego waxaan ku soo koobaynaa caafimaadka idin qofka saddex arrin inuu joogteeyo qofka bini'aadamka ah wuxuu caafimaad wanaagsan helayaa oo cudurna ka badbaadayaa haddii saddex arrin uu joogteeyo waxaan u bixiyey the triangle of health ama saddex geesoodkii caafimaadka saddex geesoodkaas waa kow hurdo kugu filan inaad seexatid labo cunno dheelitiran inaad cuntid saddex jimicsi joogto ah inaad samaysid waxaa la ogaaday iyadoo loo fiirinayo cilmi baarisyo kala duwan qofka bini'aadamka ah haddii saddexdaas arrin bas uu joogteeyo inuu helayo caafimaad wanaagsan jirkiisana uu ka badbaadayo cudur noocoo doona ha ahaadee maxaa ula jeednaa inaad seexatid hurdo kugu filan qofka bini'aadamka ah waxaa loo baahan yahay way ku kala duwan yihiin da-aadka ay kala yihiin carruurta dadka dhalinyarada ah iyo dadka da-da weyn way ku kala duwan yihiin hadba sida doonta ahaatee qofka bini'aadamka ah waxaa loo baahan yahay ugu yaraan 6 saacadood ilaa 8 saacadood oo hurdo ah inuu helo 24 saac haddii intaas ay heshay taas waxay dhalinaysaa maskaxdaada inay noqoto maskax fresh ah oo fikirto wax baran karto wax soo saarna samayn karto qodobka labaad maxaa ula jeednaa cunto dheelitiran inaad qaadatid insha allah cuntada muuqaalka la uga hadli doonaa laakiin waxaa loola jeedaa cuntada la qaato 5 nooc ayay ka kooban tahay nooca koowaad waxaa la yiraahdaa carbohydrate waa cuntada aan ka helno energy-ga aan ku dhaqdhaqaaqno aan xarakaadka ama activity-ga aan ku sameeyno energy-ga wax ku qabsano cuntada aan ka helno waxaa loo yaqaanaa carbohydrate waxaa ka mid ah bariiska baastada canjeerada galleyda rootiga sidoo kale qodobka labaad oo cuntada dheelitiran la rabo inay ka koobnaato waxaa la yiraahdaa protein waxa way qaab dhismeedka jirka oo ka qayb qaata ilmaha koritaanka murqaha iyo jirka iyo shaqooyinka ka socdaan oo idil protein u baahan yihiin labo saddex waxaa loo baahan yahay vitamin waxaa jira ilaa noocyo kala duwan oo fitamiinaad ah cuntada ka helnaa qaarkood kalena waxaan ka helnaa maxaa la yiraahdaa environment-ga fitamiinaadkaasna waa u baahan tahay fitamiinaad meelaha ugu badan ee laga helo waxaa ka mid ah qudaarta cagaaran iyo dhammaan cunnooyinka ka yimaada geedaha afar waxaa loo baahan yahay inuu qaato qofka waxaa la yiraahdaa dufan ama fatis dufantana waxaa laga wadaa macnaheeda ma ahan qofka inuu cadiin badan cuno inuu saliid badan cabo ma ahan waa wax aad u yar waxaa kaaga filan hilibka cunno dufanta uu leeyahay saliidda cuntada ku darsano intaasaa nooga filan qodobka shanaadna waxaa waaye qofka inuu qaato macdanta meelaha ugu badan ee laga helo waxaa ka mid ah biyaha oo tubada ka isticmaalno iyo cunnooyinka sidoo badanna waxaa ka buuxda macdan waxaan noo ahaa qodobka labaad ee ahaa cunto dheelitiran inaad qaadatid qodobka saddexaad waa maxay
qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa qofka inuu sameeyo jimicsi joogto ah. maxaa ula jeednaa qofka bini'aadamka ah waxaa loo baahan yahay isbuucii inuu sameeyo 3 maalin oo ka mid ah jimicsi dhidid oo ka imaanaya jirkiisa. jimicsi markaa leena wuxuu noqon karaa nooc kasta, inaad socotid, inaad orodid, inaad xirkabad ciyaartid, inaad banooni dheeshid, inaad jimka aadid and so on. waxaa loo baahan yahay laakiin qofka inuu ka kaco nolosha fadhiga ah ee uu u wareego uu sameeyo nolol jimicsi leh oo dhidid ka imaado. waqtiyada la sameynayo waa inay ahaataa galab ama subax. cuduro maxaa tahay leena waxaan ka soo hadalnay caafimaadkii 3 qodob ayaan ku soo koobnay. cudur marka muxuu noqonayaa caqliga haddii aad ka shaqaysiisid 3daas arrin aan sheegnay haddii midkood la waayo qofka wuxuu xadka u saaran yahay inuu jirooyinka faraha badan ee jiro mid ka mid ah inuu ku dhaco. ugu horreyn haddii qofku hurdo ku filan uu seexan waayo ka soo qaadno waxa ugu badan ee dhici kara waxaa waaye maskaxda inay si fiican u shaqaynayso. qofkan waxaa ku dhici kara dhammaan xanuunada la xiriira psychiatriga oo noqon karo depression, noqon karo mania, loo waasha dhici karto qofka hadduu hurdo waayo xataa. waxaa ku adkaanaya qofka waxbarashada maskax fikirto ama meesha ka baxayso. dhanka labaad qofka hadduu qaadan waayo cunno ku filan ama cunnadii si xadka ka baxsan u qaato ka bilowna hadduu cunnada si xad ka baxsan u qaato qofka waxaa ku dhacaya uu cayilaya obesity. cayilkaasina cudurrada ugu daran cayilka daba socdaan dhiig kar, sokor, cholesterol waxa la yidhaahdo dhammaan. dhanka kale haddii cunto ku filan uu qaadan waayo maxaa ku dhacaya nafaqa daro, iyadana cudurro badana aan daba socdo. qodobka saddexaad qofka hadduu jimicsi sameyn waayo waxa ugu horreeya ku dhici kara waxaa waaye inuu cayilo ama uu buurto. hadduu buurtona cudurro badan aan daba socdaan. kala goysada iyo jirka bini'aadamka kala goysadiisa haddii aan laga shaqaysiinin waxaa ku dhici kara dhammaan caabuqyada ku dhaco kala goysada. marka meeshaas maxaa kaaga soo dhadhawaya walaal adiga oo 3 qodob oo fudud joogtayn karo si caafimaadkaaga u daryeeshid. haddii jirkaaga u samayn weysid intaas oo ku caawin weysid maxaa kugu dhacaya? waxaa kugu imaanaya cudur. sidaa wada ognahayna cudur walbo kiisa ugu yar iyo kiisa ugu weynba waxay leeyihiin khasaarooyin fara badan oo ugu horreeyo qarash fara badan inuu kaaga baxo, in isbitaal lagu geeyo, in reerkii iyo qaraabadii ay kugu dhibtoodaan macnaha isbitaalkan geey, kan dhakhtarkan wax ku qabanaya isbitaalkan kala geey, yacni waqti lagugu khasaariyo. waxaas oo dhan marka waxaa ka fudud adigoo ka hortag samayn karo inaad ka hortag samaysid inta arrinkaas uusan dhicin. allah subxaana watacaala wax walba wuu qadaraa. cudur inuu kugu dhaco waa imtixaan oo loo baahan yahay in lagu sabro. laakiin ka hor haddii aad tahay qof dhalinyaro, haddii aad tahay qof maakiin oo dumar ah, cunug yar oo caqli leh, qof weyn, intaba waxaa yeeli kartaa inaad wax ka beddeshid qaab nololeedkaaga adigoo u fiirinaayo sidee ku horumarin kartaa caafimaadkaaga, sidee ugu badbaadi kartaa cudur ilaahay kuuma keenay. insha allah waxaan rajaynayaa videogan inuu kuu noqon doono mid wax badan ay ka faa'iidid. weli waxaan ku guda joognaa barnaamijkeennii nolol caafimaad qabto.